السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka bacda salaan. dhammaan inta fiidiyoon daawan doonta waxaan ka codsanayaa inay saartaan subscribe, like, share intaba saar. haddaad soo gashaan hayla dhaafina insha Allah. intaa ka bacdi waxaan ka hadlayaa maxay ahayd dagaalka Laascaanood. dagaalka Laascaanood waxaan leeyahay runtii arrin aad iyo aad looga xumaado weeyaan oo dhibaato badan in badan iminka dagaalkaas waa soconayay. marka hadii wax dhaqan umad islaameed maaha, islaam ku dhaqmo maaha dhaqanka ka socda. dad islaameed kusoo duulay habeen maalin guryahooda dul fadhiya goobada ku hayo garaacay. gaaladu ma samayso sida iska islaam ah. waxaan leeyahay dib ha la isugu noqdo oo Muuse khaldan iyo Muuse waalan hadduu waalihi ma qaban lahayd indila hadduu waalan yahay maad qabataan haddaydan ku raacsanayn. waxay ninkii waalan walaalkiisa u miir qabo masaasaa garateen habeen maalin guryo reerood iyo dhul carruuro iyo dumar iyo waayeel ka dhexo guryahooda gobada ku haysana dumisaan oo umad islaameed ku dhammaato. waxaan leeyahay halas daba qabto waxaas dhaqan islaameed maaha oo dadka ummadda islaameed dul fadhiya habeen maalin guryahooda gobada ku haya subax iyo leyl waxaa laga qabto waan leeyahay dad islaameed haddaad tihiin weeyaan. gaaladaan ku dhaqmin sida gaalada. marka waxaan leeyahay dee adduunyada waxa maaha qiyaamihii waa soo socda waxa kana sida tansi maaha. qabaayil dhan oo qaban waaye dad islaameed ku duulaynaya. ilaahay laga boqo waan leeyahay oo dhiigga islaamka hala joojiyo. tan kale aan ka hadlayo waxa weeye Xasan Sheekh. dad baan maqlay Xasan Sheekh waa sidan yiri kan uu yiri kan ICC ku yiri Soomaaliland ma bacin ka yiri. Xasan Sheekh waxa dawladnimo ka sugaya iyagaba waalan. Xasan Sheekh waa sidoo yiri inuu kale horena wax ma tari jirin waagi doodna waa looga tuudhiga inuu kale dee inuu kale dib bashaqad ku socotay wax dawladnimo la yiraahdo meesha ma jiraan. dawladnimo kama hadlayo ma socdo. dawladnimo mooday waa burburay inta la dhisayna way burburtay. wasiir shaqeynaya wax soconaya wax la sheegay maxkamad baarlamaan ma aragtin. waa dhoofa meel soo saxiixa gurigiisu gala. uu dhoofa wax soo saxiixa gurigiisu gala. uu dhoofa dhulba bixiya gurigiisu gala. baarlamaan kala sheegay xagee joogan xamba malayo inay dawladda ka joogan ka dhoofeen wax la hor keenay ma jirto. Xasan Sheekh wuxuu yiri maxay ahayd ra'iisul wasaaraha annagu wax naga dhaxeeya ma jiraan waxaan isku haynaa toon. marka jawaabtu waxa weeyaan muxuu shaqeynayay ra'iisul wasaaruhu waxa loo arki waayay wasiiradiisa meeyay isagii meeyay wax shaqeynaya ma arkaan wax hadlay wax soconay midna. gudaha inta loo galay loo hanjabay waliyad ka walad ka siinayta hadashaan hadda fadhiyo lacagta yar qaato saasay muuqata. waayo waxay tasawirtu hadli laayeen ma shaqeyn u dhaqdhaqaaqi laayeen u hadli laayeen ila dawladda wax ku naqan wasiirada inay socdaan shaqeeyaan ama si saaro hadlay ma meel wax ka qabanaya darkiisa la arki lahaa. markaas ay u muuqato qorfad baa loo xidhay wax kan waxa weeyaan wax ka badan dawladnimana kama jirto meesha. qodiyaha wajiga xidhay baa la adeegsaday dadka hanjaba saas oo yagta intaas ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.